بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد walaalyaal xalaqadanu waa xalaqadii 16aad ee kana mid a xalaqadihii aan ku xusuusin jirnay sidii aan maaragtay uga faa'iideysan lahayn bishan barakeysan ee ramadaan xalaqadihii koobnaa xalaqadan ka horeysay waxaan kaga hadalnay dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala jannadiisu gelin doono tilmaamahooda dadka ahlu jannada tilmaamahooda qayb ka mid a qaybaha way farabadihiin qur-aanka marba yani waa sifeeya dadka ahlu jannada waxaa ka mid ah sifaadkooda siduu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku yidhi fi bidaayati suurati almu'minuun qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fi salaatihim khaashicuun والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون إلهي سبحانه وتعالى tilmaamaha dadka ahlu jannada ayuu aayadahan uu ku tilmaamay wuxuu yidhi qad xaqiiqahi aflaxa waxaa liibaanay almu'minuun dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala rumeeyey awalu sifa min sifaati ahli janna waxa weeye inay dad ilaahay rumaysan oo tawxiidka ilaahay midnimadiisa inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wax lamida usan jirin keligii cibaadada u mutay rumaysan nebigana rasuulka ilaahay soo diray ee lagu khatimay rususha oo dhan ee mudan in la raaco rumaysan aakhiro rumaysan yani malaa'igta rumaysan kutubta rumaysan rususha rumaysan qadaha iyo qadarka rumaysan dadkaa weeye tilmaanta ugu horeysa dadka ahlu jannaha waa dad mu'miniina weeye tan labaad aladiina hum fii salaatihim khaashicuun waa kuwa salaadoodii dhexdeeda ku khushuuca markay tukanayaan waxay dareemayaan inay ilaahay hortaagan yihiin hadday sidaa dareemaanna de qalbigoodu wuu khushuucayaa dad qof ilaahay hortaagan oo la khitaabayo o la hadlayo oo leh alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin mahad oo dhan allah baa iska leh caalamkao dhan rabbi u ah marka dareenkaasaa qalbigooda ku jiro xubnahoodu waa khushuucsan yihiin qalbigoodu waa khushuucsan yahay maaha inuu qalbigoodu meel adduunyada uu wareegayo marka sidaa darteed waxaa lagama maarmaana in qalbiga yani khushuuciisa lagu dadaalo marka la tukanayo maxaa yeele waxay ka mid tahay asbaabaha jannada lagu tago ayay ka mid tahay qalbigaaga waa inaad soo xaadirisaa markaad ilaahay subxaana wa tacaala aad hortaagan tahay hadduu shaydaan ku dafo isku day inaad macaanida iyo aayadaha ad akrinayso macnahooda inaad fiirfiiriso ood ku tadaburto markaad rukuucsan tahay subxaana rabbiya alcadiim waxaa hufan oo ceeb oo dhan ka fog allaha weyn inaad macnahaas ku fikirto markaad sujuudayso subxaana rabbiya alaclaa alla ilaahay baa hufan sarreeyey oo maaragtay tilmaan sare leh sidaas inaad maaragtay uga fikirto qalbigaagu uu mar walbaba sidaa ilaahay subxana wa tacala ugu jiro salaada marka in lagu khushuuco salaad yani waxaad tukatay aan la ogeyn oo laiska cayaaray ama lagu degdegay ama khushuuc aan lahayn طمأنينة lahayn salaada noocaas oo kale maaha salaada ilaahay subxana wa tacala uu rabo tilmaanta saddexaad والذين هم عن اللغو معرضون waa kuwa waxa shayga laqwiga la yiraahdo isaga jeesto laqwi waxa la yiraahdo wax aan faa'iidada lahayn dadku maanta waqtigooda dhan waxa qaaday wax aan badan oo aan faa'iido lahayn waxa kamid ah sheeko aan wax macno leh oo faa'iido leh aan laga helin in maanta dhan la sheego waqtiga dhan lagu bixiyo waxa kamid ah waxyaabahan dadku mashquuliyay ee social media-da ee maanta dhan lagu jeedo ama TV-yada ama wixii lamid ah ee haddii uu maanta saacado uu dul joogo maxaad ka soo faa'iido yiraahdo wax uu sheegi kara inay jirin cilmi kama kororsan yani muxuu cibaado kama kororsan inta badan yani waa inta badana wax lagu haasaawo oo waqtigan uu kaaga dhinto daacada ilaahayna waqtigeeda ka mashquuliya balse waajibaadka ilaahay kugu lahaa oo salaadihii waqtiga lagu tukan lahaa ka mashquuliya ay yihiin marka dadka mu'miniinta tilmaamahooda ama ahlu jannada wax lagu yaqaana waqtigooda ma dayacaan wax faa'iido aan lahayn kuma dayacaan waqtigoodu waxay ku bixiyaan wax faa'iido leh oo yani uga soo noqonaya adduunka iyo aakhirada nacfi cilmi ka helayaan ajar ka helayaan والذين هم عن اللغو معرضون laqwigii waxaan faa'iidada waxa dadka isaga jeesta way
oo yacni aan dhex gelin dadkaas ay weeye. marka insha allahu saddexdaa tilmaan ayaan xalqadan kusoo gabagabeyneynaa. xalqada xigta ayaan sii dhammaystiri doonaa. hada wabillahi tawfiiq wajazakum allahu khayran. wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.